بسم الله الرحمن الرحيم ما سنتهي وسؤال مهم runtii Soomaaliya iyo Afghanistan meel badan iska eegyihiin waa dal laba dal oo xoog hubeysan oo magac islaamiyiin sheeganaya ka dirirayeen muddo ay ka soo horjeedeen dawladaha ka dhisan ee qaabkii ku dhisan intaba labadaas dawladoodna beesha caalamka siyaabo kala duwan ha kala xoog badnaadaan laakiin adduunka taageero ka helay ee dawladaasna ay ku taagnaayeen muruqa iyo maalka beeshaas caalamka ay ku taagnaayeen oo la isku dayay in laga hor istaago kooxahaas hubeysan ee xooga ku socda in ay maaragtay qabsadaan dalka tactiga isticmaalayaan iyo sida ay waxyeelayaan ama dhinaca argagixisanimada ama dadka la laayo ama xasuuqa ama dadka maaragtay xoog lagu qasbo talada ay wadaan isaga mid ay ahaayeen marka waxaan dhigi karnaa in Mareykanka oo ka baxo 20 sano kadib America ay ka baxdo Afghanistan waxay ku sababayeen in markii hore missionkooda ama hadafkooda uusan ahayn in Afghanistan qaran u dhisaan ay ahayd in argagixisada ay baacsadaan midkaas oo ka duwan wixii ay 20 sano la sheegay oo ahaa in loo dhiso dawlad qaran loo dhiso Afghanistan sababtoo ah 2 trilyan ka badan ku baxday intaas oo qof Amerikaan ku nafwaayay markii laga tago xataa NATO iyo qaybaha kale ka socda reer galbeedka wax dhan oo nolol sheegi jiray waxay in dawlad casri ah loo dhisay Afghanistan laakiin markii lagu fashilmay ayaa moodaa in oo la bedelay hadafkii oo leeyahay hadaf awal wuxuu ahaa in Osama bin Laden argagixisada laga adkaado waana laga adkaaday Soomaaliya wax weyn ka baran kartaa maadaama aan wax badan isaga egnahay waxay ka badan kartaa hadii dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ku howlan ama dadka elite ama waxa nukhbada la yiraahdo haday yihiin ganacsiga haday yihiin siyaasadda haday yihiin maaragtay aqoonta iyo fikirka haday yihiin warbaahinta idinka ay kamid yihiin hadaysan fahmin in shaqada ayaga ay u taalo oo hadda waxaan ku tiirsanahay adduunka xoogiisa ciidan amnina waxa lagu tiirsan yahay ciidanka AMISOM dhaqaalana waxa lagu tiirsan yahay midka beesha caalamka ka yimaada sidoo kale waxaan ku tiirsanahay ictiraafka dawligana waa ku tiirsanahay marka sida aan u dhaqmayno runtii hadda Mareykanka waxyaalaha ay sheeganayaan waxa kamid ah ama dhabtaba ahba in dadkii Afghan ee mas'uulka ahaa ama siyaasadda ama dhaqaalaha ama warbaahinta ama dadkii elite ama nukhbadii wixii loo yaqaanay Afghanistan inay dad gabay shaqadoodii ay yihiin 300 kun oo ciidan loo dhisay diyaaradaha ugu casrisan ay haystaan ciidamada ugu fiican ay kamid yihiin si loo hubiyo ciidanka Afghanistan tababar fiican ay qabaan oo nooc kasta leh haddana way hor istaagayaan Taliban sababtoo ciidanku ma lahayn moral iyo niyad ay u dagaalamaan ma lahayn sababtoo hoggaanka siyaasadda fashilna oo markii dambana ka cararay qasriga waxa ii muuqata marka aniga oo maanta aan ku qoray xataa qoraal aan ku sameeyay Facebook-gayga askariga Soomaaliga ee Frontline shabaabka hortaagan markii la yiraahdo doorashadii deegaankaada ka dhacday 2 milyan lacag ka badan lagu kala qaatay asagana aan mishaar loo haynin sabab ii niyada ku dagaalami kara ma jirto adduunkana sabab ku aqbali karaan wax aan lagu tartamin in la yiraahdo doorasho waay oo ay ictiraaf siiyaan oo ay dawladahan u aqoonsadaan adduunkana kama suuroobayso marka waxa moodaa dariiqii Afghanistan anaga hadda ku soconaba oo gacanteena aan ku hayno hadii aysan dadka Soomaaliyeed ee hoggaanka siyaasadda ugu horeeyo aysan baraarugin oo aysan u qaadan xilka ay hayaan kaliya inay waxay rabaan ku sameey karaan xilka inuu mas'uuliyad yahay oo go'aanka ay qaadanayaan waxa ka dhalanaya saameynta ku yeelan kara bulshada iyo dareenka iyo aragtida beesha caalamka oo ku sameey kara hadayna ka fakirin oo nin walba yiraahdo aniga say ila tahan wax yeelaya hada dadka waa ku akhrinayna waa loo jeedaa waxaana dhici doonto xilka yarka oo haay inuu asna waayo dalka iyo dawladnimadana la waayo argagixisada la sheegayay iyo dadka la baaxsanayeen talada ay gacanta u gasho dhiirigelin u tahay maanta ka bacdina Taliban hor tactic fara badan ay sameeyay horta ciidanka markay arkeen inuusan moral lahayn oo hoggaankiisa siyaasadda uu fashilan yahay saraakiisha ugu soo sarreeyo dhan ciidanka Afghanistan laba isugu dareen dhaqaalana way siiyeen assurances-na way siiyeen oo waxay dhahaan waa naga nabadgeleysaan hadda talada tartiib noogu weysaan taasaa keentay inay diyaarad dhan aysan kicinba oo ciidankii lidka diyaaradaha dhanba aysan duulin kuwii madaafiicda goobtayso dhan aysan tilaab qaadin askartiina mishaar u qoreen 6 bilood askarta Afghanistan mishaar ma qaadanin waxa kale ay sameeyeen in ay damaanad qaadna ay siiyaan ay dhahaan wax liin ka hadlaynayo male si nabada ku soo wareejiyo talada Amerikaanka waa tagayaan dhibaatada isgelnina damaanad hadda haysataan soo dhiiba marka fiiri hadii marka anaga 12 sano hadda AMISOM maraysa bishii 8 milyan dollar adduunku bixiya qaasatan European Union ka bixiya Amerikaanka wax logistic oo bixiya hadii dadku arkaan inay meesha waxba ka soo soconin oo hoggaanka siyaasadda Soomaalida sida Afghanistan looga quusto oo dhaqanka si liita aan si practice gareyno si wadno
adduunkana waa naga quursanaya argaxisadana dhiirigelin waxay u noqonaysaa inay dareemaan hadda al-shabaab dekedii canshuur ka qaadan waa wada ognahay wadanka dhan ay canshuuraan ganacsaday canshuuraan ganacsigay canshuuraan waa loo dacwoodaa garsoor waaye wax walba hadda way haysaa way dhiirigelinaysaa in adduunka xataa ay wada hadal la galaan ay dhahaan danihiina waa ilaalinaynahay annaga faraha hanala ka qaado way ku dhiirigelinaysaa inay soo haweysaan dalka inay qabsadaan dhiirigelin xoog leh u noqonaysaa iyo motivation weyn fashalkaas ku yimid quwadihii reer galbeedka runtii adigaa mudan